waxa loo yaqaano cudurka PID-ga saameynta uu ku yeelan karo tuubadaada. PID-ga marka muxuu yahay marka? waa cudurka ugu daran, caabuqa ugu daran waayo oo saameyn weyn ku yeelanaya tuubooyinkana ka xiraya. tuubooyinkaaga marka sidoo u xiraya mise caabuqani horta muxuu yahay? caabuqani waa ayaan la isku dadari waayo. labada ugu daranna waxa waaye Neisseria gonorrhea iyo chlamydia-ga. labadaasi ayaa ku keenaya. inteed ka helaysaa marka caabuqani mise intuu kaaga dhici inteed maaragtay sidoo kugu dhici kara caabuqani loo yaqaan PID-ga. PID-ga waa pelvic inflammatory disease-ka, wuxuuna saameeyaa tuubooyinka, ogxaansidaha iyo uterus-ka mise minka. caabuqani sidoo uu kugu dhacayo waxa waaye galmada ayaa laga qaadaa kow. sidoo kale uu kugu dhici karo waxa waaye dadka bahalada gudaha loo geliyo oo family planning-ka ah, dadka abortion-ka sameeyo, dumarka qaarkood oo abortion-ka mise waxa loo yaqaano ilmaha iska soo xaaqo. markuu kugu dhaco wuxuu saameyn ku yeelanayaa makaanka sida sawirka diet horaan aad ku soo aragteen. makaankii ayuu saameyn ku yeelanayaa. muxuu makaanka ku sameynayaa marka mise cervix-ka? cervix-kaaga wuxuu ku sameynayaa in uu jilciyo, wuuna dhibaato ayuu gaarsiinayaa, damage ayuu u keenayaa. damage-ka markuu gaarsiiyo oo dhanka makaanka ah, jirkaaga mise makaankaaga maaragtay unugyada ku heerarsan waxay soo sii daynayaan neutrophils-ka. qaab waxa waaye oo white blood cells-kaaga kamid ah oo dhiigga cascas kamid ah oo la dagaaltamaya infection-kani. neutrophils-ka iyo cytokines-ka markii la soo sii daayo iyo bacteria iyo maaragtay cayayaankii ayaa dagaalka dhacay. waxay keenaysaa marka in uu cayayaankani gudaha u galo mise infection-kani caabuqani gudaha u galo. haddii marka uu gudaha galo maxaa ku imaanaya marka? in aad isku aragtid waxa loo yaqaano salpingitis-ka, endometritis-ka iyo maaragtay caabuqa kale oo ogxaansidaha ku dhaca. caabuqani markuu kugu dhaco kow, jirkaaga still dagaalkii ayaa soconaya. white blood cells badan baa la soo sii daaynayaa, dhiigaga cascas baa la soo sii daaynayaa oo la dagaaltamaya infection-kani. jirkaaga marka wuxuu galaya marxalad oo healing process ah, in uu heal gareeyo. healing-kani inuu bogsado. bogsashadani marka kuma bogsanaya sida caadiga ahayd oo jirkii uu ku bogsanaya. wuxuu ku bogsanayaa infection-kii ayaa ka tan badanaya. wuxuu ku bogsanayaa qaab oo scarring loo yaqaano iyo adhesions loo yaqaano. meeshii tuubada gudaheed in uu buuxiyo oo boog ahaan ay noqoto, boogtani ay soo weynaato sida qof boog gubtay camal jirkiisa inay noqoto, oo meeshii aad ka gubitay camal in ay maaragtay ay soo yaro bararto. tuubadani way yar tahay inay sidii ay ku xirto. qaabka labaad waxa waa adhesions baa meeshii ka form garaysmaya, ayagoo idil meeshii way wada xirmaysaa, way isqabsanaysaa tuubada gudaheed, sidaas bay noqonaysaa. tuubo furneed hadday ahayd tuubada way xirmaysaa. qaabkaasi ayuu marka dhibaato ku gaarsiina uu kugu keenayaa caabuqani. sidoo kale waxaad isku arkaysaa marka calaamado kala duwan xilligani marka aad ku jirtid oo caabuqani uu saameyn uu ku geysto. calaamadaha aad isku arki kartid oo caabuqani uu ku keenayo waxa waaye xanuun oo dhankaasi hoose ah, pelvic pain-ka loo yaqaano. sidoo kale waxaad isku arkaysaa in aad maaragtay marka qaar uur qaadashadii mise uur qaadkii inaad uur aad yeelatay in dhibaato ay kugu noqoto. uurba ma yeelan kartid. why? because wuxuu damage gareynayaa oo dhibaato gaarsiinayaa unugyadii haddaaytay aan ka soo hadladnay oo ah ciliated cells-ki, unugyadii ogxaanta wadaaya oo hor u soo durjinaya. sababtoo ogxaansidii hadduu ogxaanta laga soo qaado fimbriyaga loo keeno, fimbriyaga wuu soo riixaya, tuubadii ayuu gudaha u soo gelinaya. maxaa soo wadaya marka oo ilaa ambuloga keenaya? ambuloga wax keenaya waxa waaye ciliated cells-kan iyo pec cells-ka, unugyadii labadii unugyo aan inkaga soo sheekeeyey ayaa soo riixaya. labadani unugyo ma shaqayni karaan ayagana estrogen-ka haddii uu hooseeyo, haddii dhibaato ay jirto. dhibaatada waxa waaye PID-ga, infection-kani caabuqani hadduu dhibaato u gaarsiiyo unugyadani ciliated cells-ka columnar epithelium-ka, gaar ahaan ciliated cells-kani hadduu dhibaato u gaarsiiyo iyo pec cells-ki, wax soo riixaya ma laha marka ogxaantii. maxaa ku dhacaya marka?
fail ay noqonaysaa way fail gareysmaysaa ogxaantaadi because of meeshii ayay ku rakibmaysaa because tuubadii dhaxda ayay ka xiran tahay unugyadii soo riixaayay ogxaantii way xirmeen way damage gareemeen oo destroyed bay noqdeen waa lagu dhadheelay oo way halaabeen maxay noqonaysaa marka ayadoo tuubadii dhaxda ka xiran unugyadii ay dhaawac ka jira tani waxay keenaysaa marka ogxaantii inay iska beeldarowdo oo uur qaadis sidii maaragtay uur qaadistina ay dhib ay kugu noqoto arrinta kale aad isku arkaysid waxa waaye caadada markay kugu dhacdo in ay xanuun ay noqoto caado xanuun badan ay kugu dhacdo waxa kale waxa markaad kaadada aad aadid mise odigaaga aad la kulmaysid kaada xanuun aad isku arkaysaa sidoo kale odiga markaad la kulmaysidna adiga iyo odigaaga aad kulmaysidna xanuun zaa'id ah ayaad dareemaysaa xilliga aad hawshan aad ku jirtid intaasi in ka badan ayaad dareemaysaa laakiin se dhibaatada ugu weyn pelvic infectionkani uu ku keenayo PID-gani ku keenayo waxa waaye uur qaadistii ayaa dhibaato kugu noqonaysa because tuubadaada gudaheed way halawsan tahay way xirantay tanina waxay ku keenaysaa in aad dhibaato weyn aad kala kulantid dhanka uur qaadista maxaa marka xal ah lagu fiirin karaa sidee lagu ogaani karaa dhibkani inuu jiro iyo in kale waxaa la sameeyaa wax loo yaqaano scanka loo yaqaano hysterosalpingography wax loo yaqaan hysterosalpingography muxuu yahay marka waa x-ray lagu saarayo oo hoostaas laga gelinayo la fiirinayo tuubadaada inay furan tahay patent ay tahay sidee yihiin ogxaansidahaaga iyo intaasi in ka badan sidoo kale scanka kale lagu saari karo waa ultrasound muxuu ku sheegayaa haddii tuubadaasi gudaheed ay wax loo yaqaano hydrosalpinx wax loo yaqaano oo biyo ku jiro camal bay noqonayaan biyahaasi ayaa la fiirinaya marka ugu dambeyntiina waxa waaye dhiigagga ayaa laga qaadaya waxa laga fiirinaya sexually transmitted infectionka VDRL-ka iyo intaasi in ka badan ugu dambeyntii marka waa maxay marka xalka lagu xalin kara shaqadani dhibkani xalka koowaad waxa waaye laparoscopy in lagu sameeyo waa caabuqasi laga saaro meeshii tuubadii la kilin gareeyo dhakhtarkaaga ayuu ku xiran tahay go'aanka ay qaadan doono mise in antibiotic lagu siiyo daawooyin culus lagu siiyo oo qalajiye ah oo ka burburnayo infectionkaasi meeshaasna isku dayay inuu maaragtay kala haddii kalena waa in laparoscopy mise la flash gareeyo tuubooyinka la furo la ogaado waxaasi oo idil procedure oo qalin waayo lagu sameeyo waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysatay muuqaalka dad badan ayaa i weydiinayay sida maaragtay ku yimaadaan tuubooyinka dhibaatada tuubooyinka waxa keeno waxyaalo kale oo keenaya ayaa jirto laakiin se wuxuu kamid yahay waxyaalaha ku keeni kara tuubadaada in ay xiranto mar kale waxaan ka hadli doonaa ectopic pregnancy-ga dhibka uu keeno iyo maaragtay sida kale asxaabe waxaan filayaa inaad ka bogatay fadlan meel walba joogtiin channelka kiilowna subscribe like and share ka waxaan idin rajaynayaa khayr badan. Assalamu calaykum.